Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabi kusoo dhawaada channelkeena meel kastoo joogtiin. Haddaad nagu cusubtahay please subscribe, share, like, comment. Haddaa hore noo joogtiin like, share, comment. Asxaab badan baa nagu soo biirtay insha Allah. Soo dhawaada. Waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. Asxaabtii horena sidoo kale idinkana soo dhawaada. Maanta waxaan sameynayaa banana bread ama rooti laga sameynayo moos insha Allah bismillah cream. Waxaan ku dardari doono iyo saan ku dari doono nala daawada insha Allah. Waxaan haysanaa oo ku sameyn doonaa rootigan ka sameynayno mooska. waxaa noo yaala 2 xabo oo moosa oo moos waaweyna oo mooska bisila insha Allah bismillah cream 2 xabo. waxaan kaloo ka sameynayaa koob caana ah, koob sonkora, 2 xabo oo kuna, stick butter, 2 koob oo buur ah, 2 qaado oo qaadada yar teaspoonka ah oo baking powder ah, in yar cusbo ah intaan ku dari doonaa insha Allah bismillah cream. waxaad u baahan tahay baaquliga ku qasi lahayd weynaa iyo baaquliga aad moos ku jabsan lahayd insha Allah bismillah cream right now. hadda waxaan sameyn doonaa insha Allah mooskeena ayaan fiiqanaynaa oo diyaarsanaynaa. waxaan ku ridanaynaa baaquliga loogu talagalay. marka hadda waxaan sameynayaa mooskii ayaan jabiyey, fargeetada ayaan kusoo jabiyey, waan soo jabiyey. markaa waan noo diyaar. dhinaca dhiganaynaa. hadda waxaan isku dardarsanaynaa waxaan ka sameysan lahayn breadkeena. waxaa weeyaan stick butter ah oo soo dhalaaliyey, subag weeyaan, butter subag aan soo diyaariyey sticka. waxaan kaloo ku darayaa koobkii ahaa sonkorta. waxaan kaloo ku darayaa 2 xabo ukunta, 2 xabo ukun ayaan ku darayaa. waan ku sameynayaa hadda waxaan sameynaya waan isku qasayaa ukunta iyo subaga iyo sokorta insha Allah bismillah cream. hadda waxaan marba in yar ku darayaa caanaha, koobkii caanaha ahaa ku qasayaa. markaa caanaha ku qaso iyo ukuntii iyo subagii isku qaso, waxaan ku darsanayaa mooskii 2 xabo mooska ahaa inoo jabsanaa diyaarka noo ahaa ayaa hadda ku shubaynaa. after that mooska markaan ku shubo waan isku qasayaa mar labaad haddana. marka hadda waxaan diyaarsanayaa intii qalaaleed burkii 2 koob ee burka ahaa ayaa waxaan ku darsanayaa 2 qaadada yaryar oo ah baking powder iyo cusbo. kabacdina waan isku dhex walaaqayaa si isku dhex fiican isugu dhex gasho. waa intayna qoyaneed waan diyaar bayeen. inta hadda qalalan ayaan isku darayaa. marka insha Allah isku walaaqayaa. marka isku walaaqo waxaan isku darayaa alaabteena aan soo qasanay diyaarka noo ahayd ayaan ku dhex darsanayaa. hadda waxaan ku darsanayaa alaabtii qoyaneed iyo waxaan isku darayaa alaabta qalalan burka iyo oo noo diyaarka isku shiidaya insha Allah.
hadda waxaan soo diyaarsaday digsigaga ama maqlinka ku shubayn lahaa rootiga ku sameyn lahaa waxa weeyaan saxanka saa u dhuuban rootiga loogu talagalay rootiyaasha waxaan soo mariyay subag dhinacyada dhan suu kaaga dhigin dhutoole uu qabsanayaa hadii kale subag ayaan soo mariyay saddex geesihiisa iyo hareerihiisa dhexdiisa marka hadda waxaan ku ridanaynaa mixturekeeni ama banaana breadkeeni aan soo diyaarsanay aan ka samaysanay mooska iyo alaabaha kale isku dhex jiray hadda waxaan ku shubaynaa meesha ofinka ayaan gelinaynaa insha allah ofinka waxaan gelinayaa about marka hore yara garaacaysaa suu salka u galo ofinka waxaa gelinaya 300 wuxuuna ku jirayaa 30 minute ayuu ku jirayaa wuu noo soo diyaar u soo baxay breadkeeni ama rootigeeni taasuu kusoo baxay aan ka sameynay mooska iyo yaan ka sameynay mooska iyo alaabihii kale marka insha allah bismillahi kariim saasuu kusoo baxay isagoo wuxuu qaatay 30 minute dabka ku jiray 300 oo wuxuu ku jiray Fahrenheit inuu ku jiray shoolada ama aan geliyay dabka maasha allah saas kusoo baxay macaan rootiyo macaan oo wanaagsan ayuu kusoo baxay please da horna ma joogtay like share comment haddana ku subtaan please subscribe ka naga ilaawin waa mahadsantihiin sida waana nala socotaan beelka furo aad la socotid every time a video soo upload gareeyo hadda weekii waxaan sameynayaa weekii 4 casho mar ayaan soo upload gareynayaa videoyaasheeda insha allah bismillahi kariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.